trade kani live weeyaan sida arkaysaan akoonka aan ku trade garanayana $184 baa balancegiisa marka insha Allah waxaan rabnaa dabcan akoonku wuu iska yaryahay marka akoon noocaas kaleeta gold ku trade garanaysid dee hal trade waxa weeye lacag fiican kama aad raadin karaysid haddii aad maaragtay management samaynaysid marka laakiin waxaanu rabnaa sida caadada inoo insha Allah horey nagu samayn jirnay meelahaas 20 ilaa 30% oo kaleeto increase inaynu raadino haddii ay loss noqotona ugu badnaan insha Allah inaynu 15% oo kaleeto ku lose garayno marka waa 2 RRkaas SLkaas arkaysa waa 22 targetkuna waa 40 pip insha Allah marka xaggan baa insha Allah waxay noo tahay target 1 keena trade-kana waa iska simple analyze weeye يعني setup-ka aan ku qaatay DXY iyada haddii aan fiirino waxa weeye already saaka sidii aan u analyze gareeyay ama London session-kii ayaabay samaysay in xaggan dhaqaaq xawliyo fiican laga samayn doono intii bay samaysay si la mid ah iminka hadday analyze-kii aan sameeyey unbay haddana weli ku socotaa halkan is arkaysaan body close-ka lagu kor xirmay pullback baa lasoo sameeyey candle-kan isagoo centerkaa soo maraya oo aanan xirmin baan maaragtay ku forecast gareeyay in pullback uu yahay kadibna isla markii la istaan gareyn doono sidii baana la sameeyey golden asalkaas nadiifta ah maaragtay u soo qaato ma fahanti marka isla aragna insha Allah trade-kan waxa uu ku dhamaado 20 ilaa 30% hadduu na siiyo runtii waa ilaahay wax loogu xamdiyo waa magarad candle-kana week dheer soo doontay runtii isagaa lagu xumeeyey maahane mar horaanba trade ku kala bixi lahaa marka hadda waxa u dhimanaya tiimkii waxa weeye 30 second u dhiman very nice alhamdulillah very nice you see $17 profit hadda wadaa alhamdulillah si fiican runtii isku soo taangareeyay candle-kani alhamdulillah very nice $23 24 I think so hadda trade-ka waa inaa break fan gareeyo insha Allah what profit-ka waxayn doonaa biidhnillah it's a nice profit alhamdulillah one trade waxaan rajaynaa insha Allah inaanu maaragtay trade-ku waqtiga cunin maadaama muuqaal duubayo runtiina trade kasta waxaa ka horeeya inta aad qaadanin ka hor yacni waqti badan inaad suuqa ku bixisid analyze-ka inaad waqti ku bixisid bias-ka inaad waqti kusoo bixisid ya ma aragtay Allahu mustacaan balaan inaad u samaysid trade-ka sidoo kaleeto aad suuqa iyo trade-kana ku galaysid sida hadda aniga iga maqlayso oo kaleeto inaad leedahay target ama percentage aad ka doonaysid suuqan aad greedy noqonin ma garatay inuu jiro percentage aad target gareynaysid oo haddii aad gaartay suuqa aad ka haraysid macnaha xitaa in case of haddii maaragtay still trade-ka uu open yahay ma fahanti haddii target-ka aad gaartay aad trade-ka ka hari karaysid ma aragtay loss-kaaga aad durdurkanin oo loss limit aad leedahay aad sugtid suuqa hadduu loss-kaa kaa saarana waxa weeye kaa saar haddii uu profit ku siiyana ku sii wey hadda imagine $6 baa lagu soo celiyay $26 $20 hadda waxa ku jira asaas minus $3 hadda kaliya soo hartay 20 iyo waxa ku jira $3 minus but still waa heynaa insha Allah ma garatay gold macnaha bishan xogaa waxa ku arka waxa kamid ah 20 bay marka uu dhaqaaqo inuu waxa weeye kugu soo noqo bari ka fan inuu toos u soo aado fahmaysa kadibna uu sii dhaqaaqo haddana xogaa ceeb waayo wallahi waa shame $26 adigoo helay in break fan laga saaro waa shame waa ma fahanti ma rajaynaya biidhnillah ma rajaynaya insha Allah so 5kaas haduu 5ka soo aragto findi cindi waa 5 week intaas la weligay ma arkin kan baaldi close buu sameeyay very nice waa qurux badan ma garatay marka waxa ka rabnay candle-kani waxa ugu weyn oo sameeyay inay noqoto inuu kii hore register gareeyo kadibna aan saa soo maaragtay dhaqaaq fiican soo helno laakiin meel uu sii marayo fiir waa caaqnime lama rabin week intaa leeg inuu doonto ma la rabo NY session markaa ka hadlayno maanta oo kale waa maalmaha ugu fiican ee la trade gareeyo oo wax news soo weyn ma uu soo baxayo sida arkaysaan lacagta doolarka ma soo baxayo alhamdulillah si fiican buu rejection noogu soo sameeyay hadda $20 almost ayuu inoo wadaa oo dib inoogu soo celiyay alhamdulillah marka wixii loo dulqaato wixii waqti la geliyo wixii loo dadaalo haddana ha ilaawina ilaahay noo tala saarsado wallahi xaqiiqatan ma guuldaroobayaan saa imagine $3 aan la geeyay hadda $24 $25 hadda lagu soo celiyay ma fahanti so alhamdulillah candle-kan inuu rejection-ka intaa leeg soo sameeyay kalsooni weyn bay siinaysaa xitaa aan lot kale suuqa ugu dari karo
laakiin waa planned waxa ku soconaya ma fahantay marka ma doonayo inaan insha allah lot kale isticmaalo si aan riskigayga u yareeyo marka alxamdulilah laakiin ilaah waa iskale markasta ilaah waa iskale sababtoo isaga anagu wax ku nahay ma fahantay $27 $28 alxamdulilah good so I think waa inaan soo update gareeyaa TB2gayga oo aan ka dhigaa $35 camal TB-gayga wuu igu siinaya insha allah $35 kaas waa dhan ma garatay okay TB2 update $28 nice movement $29 alxamdulilah so hit TB $25 $35 ali marsiinoyaa so I will fully close alxamdulilah sida arkaysaan akoonka hadda waxaan ku daray 34% waan ku daray marka hore akoonka balancegiisa wuxuu ahaa $184 camal oo ahaa iminkana $222 again marka ilaahay baa maadaas iskale kana waxaa rajaynayaa from the start to the end inay la socoteen waxna ka faa'iideen khayr badan baa inay rajaynayaan wadageliyo